cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu talooyin siiyay madaxweyne farmaajo ka hor furitaanka maanta ee kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya. waxaa maanta oo sabti ah ku beegan 6 Juun lagu wadaa in si rasmi ah u furmo kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaas oo noqon doona kala fadhigii ugu dambeeyay ee baarlamaanka hadda jira oo muddaxileedkiisa ka harsan yahay 6 bilood. hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraal dheer uu ka qoray kala fadhiga maanta waxa uu talooyin uga soo jeediyay madaxweyne farmaajo maadaama uu jeedin doono khudbadda furitaanka kala fadhiga oo noqon doona kiiskii ugu dambeeyay maadaama wax ka yar 10 bilood uga harsan yihiin muddada uu xafiiska joogo. madaxweyne waxa igu maqaalo ah inaad maanta kala fadhiga baarlamaanka furayso, waxaana ku xusuusinayaa inay fursadani tahay tii ugu dambeysay aad baarlamaanka ku hortimaado maadaama uu yahay kala fadhigii ugu dambeeyay ee baarlamaanka yeesho. haddaba madaxweyne waxaa kula gudboon inaad indhaha kala furto, xaqiiqda ka sheegta xaalka dalka, dhabta wajahda dhinac iska dhigta dhalanteedka garowshiyo ka bixiso guuldaradii gaabiskii iyo weliba gaboodfalkii dhacay. waxa kuu haray waa 8 bilood shacabka ku dhageysan doona kaama sugayaan ballanqaad waxqabad ama kufaan waxa aad soo qabatay, taasi way ka daaleen. waa la wada ogyahay inaad taalooyin dhistay, dayactirtayna golihii murtida iyo madadaalada, garoonkii ciyaaraha ee Muqdisho iyo madxafka qaranka. laakiin shacabku waxa ay doonayeen dalka ciidan qaran loo dhisay, amisom oo mas'uuliyadii amniga lagala wareegay, argagixisada oo nabad lala gaaray, ama dagaal looga guuleystay doorasho qof iyo cod oo la qabto, nidaamka 4.5 oo laga gudbay loona gudbay nidaamka xisbiyada badan, dastuurkii oo la dhameystiray, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo wada shaqeeya, maxkamadii dastuuriga ahayd iyo weliba guddigii adeega garsoorka oo la dhisay, hanti dhowrka oo madax bannaan hela si hufnaan maaliyadeed iyo garsoor cadaaladeed loo helo. dadku hay-ado dowladeed oo la dhisa ayay kaa sugayaan ee derbiye dhisid marxaladan kaagama fadhin. sidaasi darteed shacabka maanta hal arin ayay afkaaga ka dhowrayaan, sida ay xukuumadda aad hogaamiso u qabanayso doorasho xilligeeda ku qabsoonta, la isaga raali yahay si nabadoonna ku dhacda. dadka waxay kaa sugayaan sida aad ula heshiinaysa dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kaa aragtida duwan, saamigana ku leh siyaasadda dalka. dadku waxa ay dhowrayaan inaad ra-iisul wasaaraha ra'yigii uu maalmo ka hor sheegay ku raaci doonto ama wadadii dhalanteedka aad sii hayn doonto. ha is oran riwaayadii dhig oo dadka ku maaweeli doorashada guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka ayaa laga sugayaa. madaxweyne calafkaaga iyo nasiibkaaga tijaabi. waxaa ku xasuusinayaa inaad dalka timid 20 Diseembar 2016 doorashadii oo ay bil iyo 8 maalin ka harsan tahay. madaxweynaha ayaa lagu doortay, dadka oo idinla waa ay ku taageerayeen. xilkii ayaad kala wareegtay madaxweyne awoodii dowladda ee Muqdisho haysta. sababta sidaasi u dhacday waa tixgelin shacabka u haya dastuurka iyo dowladnimada iyo inay diidan yihiin xukunka sharci darada iyo xoogga ku dhisan. waxaan kaloo ku xusuusinayaa in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amisom ee aad meesha ugu timid amarkooda uu shaqeynaya inta ay sharciyad iyo dastuur u hoggaansan yihiin. madaxweyne kuwa habeen walba ku seexiya ee filimka dhalanteeda kuushida ee ku leh haddii dowladda federaalka ay isku duuban tahay cid kale loo jooji maayo, waa kuwa ugu horeeya ee aad weyn doonto marka ay xaajada dhabta gaarto. sababtoo ah awoodda mansab iyo magac maaha ee waa inta uu saamiga siyaasiga dhan yahay, taasoo halbeegeedu yahay hadba saameynta iyo taageerada uu heli kara inta ay la eg tahay. waxaan mar kale ku dardaar warinayaa inaysan talada ku sheegin, fursadana kaa lumin. taasina waxay ahayd qoraalkii uu cabdiraxmaan cabdishakuur ka qoray kala fadhiga baarlamaanka ee maanta lagu wado in madaxweyne farmaajo uu khudbad ka jeediyo.